gudoomiyaha guddiga abaaraha ee gobolka Togdheer Maxamed Diiri Yaxayd ayaa lacag dhan 2500 oo dollar ka gudoomay qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer oo qaadaan ururin dhalinyarada uga dhex sameeyay gurmadka abaaraha dalka. xubno ka mid ah dhalinyarada lacagtan ku wareejisay gudoomiyaha guddiga abaaraha ee gobolka Togdheer oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay kaalmadan yar iska ururiyeen dhalinyaro khaas ah oo ku dhaqan gobolka Togdheer. dal walba waxa uu leeyahay khayraad hal mardoorsi ah. Somaliland khayraadkeeda hal mardoorsiga ahi waa dhalinyarada. waxaanu anagu ku hadlaynaa afka dhammaan dhalinyarada gobolka Togdheer intooda dareen dadnimo, turaale tolnimo iyo qiimeyn qarannimo ku midowday ku wareejinayna lacag dhan 2500 oo dollar iyo 10000 oo shilin oo laana guddida abaaraha ee heer gobolka Togdheer. maadaama waqti aan ugu talagalnay dhalinyarada gobolka Togdheer inaan qaaraanka kaga aruurino kuleynta abaaraha oo si aanu u noqonin wax iska furan akoonada aan ka mas'uulka nahay dhalinyarada gobolka Togdheer haddii aan nahay si aan loo arkin shakhsiyaad gaar ah inay ku shaqaysanayaan ama aanay ku adeegsan. waxaanu maamulka gobolka Togdheer iyo guddida heer qoran hortooda kaga codsanaynaa labada shirkadood ee Telesom iyo Somtel kala ah inay nagala wareegaan labadii akoon ee kaadhad ee nasiiyeen kii dahabka ahaa iyo kii saadka ahaa xanibaad ugu sameeyaan. ciddii dambe dhalinyarada gobolka Togdheer ka tirsan ee jecel inay qaaraan bixiso ku saabsan abaaraha si ay ugu bixiyaan ka heer qaran. lacagta 2500 waxa iska ururiyay dhalinyaro khaas ah oo kamid ah dhalinyaro arday ah iyo dhalinyarada shaqeysa kuma jiraan shirkado ganacsi, kuma jiraan dad siyaasiyiin ah oo xilal haya, kuma jiraan dad oday dhaqameed ah, kuma jiraan dad kale oo waaweyn oo aan dhalinyarada ahayn. waxa iska ururiyay dhalinyarada aad aragteed ee imika ku hor fadhida iyo in kale la mid ah dhalinyarada inaan u sheegoon in hantidii ay runtii ay ku tabaruceen inay tahay tan maanta la wareejinayo hortooda. Mustafa Khalaf oo ka socday shirkadda Telesom ee saada u furtay dhalinyaradan iyo Dr. Faisal Maxamed Ali oo kamid ah culimada gobolka Togdheer, xogayaha fulinta gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha guddiga abaaraha ahna kusimaha barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Yaxayd ayaa halkaas uga duceeyay dhalinyarada kuna tilmaamay qaar ka tilmaaman dhalinyarada dalka. u mahadcelinayaa dhalinyarada isxilqaantay garatay inay mujtamacooda dhibaataysan iyo dadkooda dhibaataysan inay kala qayb galaan oo waxa weeye wixii ay awoodaan inay ku taraan. sadaqadana lama yaraysto. dhalinyarada gobolka Togdheer ee dadaalka badan gashay ee juhdiga badan samaysay aan habeenku horena kala qayb galay markay hawshan galayeen ee talo kaleemaayo kulba waxay kasta dalka ku soo gudboonaada ama gobolka ku soo gudboonaada u faydan aad baan ku mahadnaqay. halka ka balan qaadayna halka ugu tala gasheen in waxa soo qaatin gaadho. Saciid Salabaan Nuur, TV-ga qaranka Somaliland, magaalada Burco.